السلام عليكم أصحاب السوداء waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo muuqaal ku saabsan sida aad computerkaaga speedkiisa kor ugu qaadi lahayd marmarka qaar ama inta badan waxa laga yaabaa computerkaagu inuu ka cuslaado ama uu jam gareeyo markaas tiraahdo hawl ku qabo markaas oo kale sidee baad computerkaaga speedkiisa kor ugu qaadisaa oo si uu kugu fudaado oo hawshaadana aad si fiican ugu fushid computerka hadduu culus yahay wuxuu dilayaa waqtigaaga marka waa muhiim inaad haysatid computer speedkiisu si fiican u shaqeynayo marka hadaba sideeba haddii computerka ka yar cuslaado aad speedkiisa kor ugu qaadi kartaa ama aad u fudaydin kartaa waxaan ku barayaa marka laba hab ama laba qaab oo fudud oo aad markiiba computerkaaga aad u fudaydin kartid waxaad tagaysaa halka start buttonka calaamada Windows ka ku dhufanaysaa kabacdi waxaad ku qoraysaa halka run markaad ku qortid enter baad leedahay inta markaad ku qortid halkaas waxaad ku qoraysaa marka prefetch ku qoraysaa marka prefetch ku qortid waxaad leedahay okay markaad tirahdid gooniya folderkan waxaa ku jira halkan hoose hadaad eegtid 198 items baa ku jira 198 ka item ee ku jira waa waxaan loo baahnay macnaha waa waste way waa waxyaabo qashin oo iskaga jira meesha aan loo baahnayn control a baad dhahaysaa dhammaantood markaa waad delete saa right click dheh dabeetana wax oo dhan delete garee yes dheh kuwan oo kale delete gareys waaye skip baa iska dhahaysaa waxa laga yaabaa hadhow iska baxayaan iyagu okay waa iska cancelaysaa mar labaad baad ku noqonaysaa calaamada Windows-ka dabeetana waxaad ku qoraysaa mar labaad run baad ku qoraysaa run markaad ku qortid marka waxaad qoraysaa ampersand calaamada ampersand-ga number 5 bay ku taallaa haddaad horey weydid dabeetana waxaad qoraysaa term dabeetana ampersand baad u dambaysiinaysaa kabacdi waxaad dhahaysaa okay sidoo kale halkan folderkan ku lagu geeyay folderkan hadda waxa igu jira kii hore 198 item baa ku jiray kan waxa ku jira 2964 item adiga uu ka badnaan karaa waxa laga yaabaa inuu 700,000 inay kugu jiraan baa laga yaabaa haddadan hore isaga dhigidin anigu waa dhexdaas iska dhigiday markaa way igu yiri intana waa dhigidaysaa mar labaad waxaad dhahaysaa control a dhahaysaa dhammaantood waa select garaynaysaa dabeetana right click baad dhahaysaa kabacdina delete baad dhahaysaa kadibna waxaad dhahaysaa yes continue baad leedahay markaas ayuu deleting bilaabmaya markuu ka wada delete gareeyo waxaan rajaynayaa computerkaagu inuu si fiican u shaqeeyo oo waxaan ku yiri speedkiisu uu kor u kaco aad iyo aad baad mahadsantihiin waa saaxiibkan Ra'iis oo idin leh assalaamu calaykum